السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كوحدن كنالكن إيش عيارها كسو دوادا مقال عصب oo ka tirsan taxaniheeni Euro 2020 oo aynu ku eegi doono kulamada loo balansan yahay maanta iyo caawa ee ka tirsan koobka qaramada qaaradda Yurub kulanka ugu horeeya waxa uu gaabta dhex maraya xulka kala ah Ukraine iyo waqooyiga Macedonia labada xul ayaa labadoodaba guuldarro kala kulmay ciyaartoodii furitaanka Ukraine waxa ka adkaaday Holland halka Macedonia ay guuldarro kala kulantay xulka Austria si kastaba xaalku aad labada dhinac waxa ay leeyihiin asbaabo ay ku filan karaan wanaag waxa labadoodaba kulankii bilowga muujiyeen ruux qitaali ah oo aan yarayn iyagoon labadoodaba looga adkaaday goolal soo daahay labada dhinac waxa yeeshay waxay og yihiin in guuldarro caawa soo gaadha ay noqonayso dhamaadka tartankoodii waa haddii aanay labada xul ee la tartamaya ee Netherlands iyo Austria aanay barbargelin tababaraha Ukraine Andriy Shevchenko ayaa sidan yiri waqooyiga Macedonia waxa ay mudan yihiin xushmad waxay leeyihiin qaab dhismeed waxaana ay sidoo kale haystaan hogaamiyayaan haddii jeer waxay ku ciyaaraan shax ah 5-3-2 oo weerar celis badan kama filayno wax hadiyada ah xulkani dhanka kale daafaca Ukraine Mykola Matviyenko ayaa isna hadalkani soo socda warbaahinta uu sheegay waa mid kamid ah ciyaaraha ugu muhiimsan marka la joogo marxaladan waa nagu khasab inaanu guuleysano waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo ay nagu qaadanayso si aanu u kasbanno 3 dhibcood ciyaarta labaad ee dhici doonta caawa marka ay saacadu ku beegan tahay 7 habeenimo ayaa dhex mari doonta Denmark iyo Belgium oo ka tirsan Group B dhacdadii sabtidii la soo dhaafay ayaa ah mid weli ku jirta maanka xulka Denmark inkastoo uu afkiisa ka xaqiijiyay Eriksen in xaaladiisu wanaagsan tahay hase yeeshee saameynta ay ku yeelan karto qaab ciyaareedka iyo bandhigga xulka Danish-ka ayaan ahayn mid cad xulkan oo isagu marti loo yahay ayaa u baahan guul hase ahaatee taasi waa hawl aad u adag marka loo eego xulka ay wajahayaan ee Belgium-ka kaas oo sidii laga filayay koobkan ku bilowday markii ay 3 gool iyo waxba ku dubteen xulka Ruushka Toby Alderweireld daafaca Belgium ayaa warbaahinta u sheegay intani ma garan karo sida ay Denmark u dheeli doonaan hase yeeshee waa inaanu nafahayaga eegnaa oo u diyaar garownaa kulankan qaab muxtarifnimo waxaana laga rabaa inaanu isku dayno ku guuleysiga ciyaartan inta aanu samayn karnaa waa inta dabcan dunida oo dhan ayaa hadda xushmad u haysa xulka Denmark taas oo ku saabsan sida ay u maareeyeen dhacdadii sabtida waxaanu u haynaa xushmad aan dhammaanayn balse waa inaanu ciyaarta isku daynaa in aanu guuleysano ciyaarta ugu dambeysay caawa loo balansan yahay waxay dhex mari doontaa xulalka Netherlands iyo Austria kadib markii ay labadooduba soo qaateen dhibcoodii 3 ahaa kulankoodii koowaad labadan xul ayaa u baahan in si midkood u soo baxo uu guul loo haydo caawa xulka Orange waxa uu ciyaartii koowaad ka soo adkaaday xulka Ukraine oo 3 gool iyo 2 kaga badiyay weerarka cabsida leh ee Netherlands ayaa la filayaa inaanay baqi galinayn xulka Austria oo isagoo laftiisu ciyaartiisii koowaad gool 3 gool iyo 1 ah ku burbursaday xulka waqooyiga Macedonia tababaraha xulka Netherlands ee Frank de Boer ayaa kulankan ka yidhi De Ligt uu ku soo bilaabanayaa kulankan xumaalmihii ugu dambeeyay qaadanaya tababarka marka uu kulku heerkaas oo kala gaarsiisan yahay haddii jeer kubadda cadaadis saari maysid balse waxaad u baahan tahay qaabab kale oo aad fursado ku abuuri kartid Austria waxa kor u kac ku socday sanado badan waxa ay leeyihiin isku dubni wayna adag tahay in laga adkaado dhanka kale Frank Foda tababaraha Austria ayaa isna sidan yidhi hal qodob waa cad yahay kaasina waa inaanu weli u baahannahay guul si aan ugu soo baxno wareegga 16 taasi waa waxaanu dhab ahaantii baahi u qabno wiilashu waxay guuleysteen kulankoodii furitaanka waxayna dhigeen taariikh asxaabta nagu xiran oo muuqaalkan aadka u koobnaa aynu ku eeganay kulamada galabta iyo caawa loo balansan yahay ee koobka qaramada qaaradda Yurub intan ayuu ku eegay fadlan haddii ku cajab galiyo like saar sidoo kalena la wadaag asxaabta kale ugu dambeynna ha hilmaamin inaad subscribe saartid sidoo kalena daartid gambeelka digniinta kanaalkan waa aniga idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh